soo qorxiseen oo nagala soo qayb gasheen waqtigiina qiimaha badan la soo siiseen inta ka bacdi waxa runtii aan doonayaan idin sheego maanta uu inaga maqan yahay wasiirkii wasaaradda maalgashiga mudane Cawad wuxuu ku maqan yahay safar waddanka Ingiriiska shaqo marka inala ma joogo laakiin waxaan la joogo wasiir ku-xigeenkii wasaaradda qorsheynta iyo gudoomiyaha fahamka inaga sii tagaya marka kale wasiir ku-xigeenka nala joogayo inoo si kala wareejinayo xilka mudane Xuseen Ibrahim Boni waxaan jecel markaa inaan soo dhaweeyo ugu horeyn walaashay deeqa agaasimaha guud ee cusub oo runtii saa la sheegay markaa miisaankeeda culeyskeeda aqoonteeda aad ka garan kartaan markaa xafladan aad ka garan kartaan deeqa runtii waa horeyna way ugu soo shaqaysay markaa howlaha qaranka oo qof khibrad leh kaliya waxa ku cusubtay markaa dawladnimada markaa deeqay walaal soo dhaw agaasimo guud sidoo khadar cakulaaniga gacan qabtay markii dawladdan soo galay islamida aan ku tababari doono insha Allah taala marka waxba warwarin saaxiibkay Cabdi Kariim in yar madaxun baa yar ciralay laakiin se kale waa nin dhalinyaro waan wala yar kaftamaya horta aad iyo aad buu mahadsan yahay howlkan quruxda badan leh ina siiyay uu ku mahadsan yahay laakiin xafiiskan ku jirana Muusin Cabdi Kariim xafiiska madaxweynaha siiyay marka madaxweynaha aad baan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda maalgashiga xafiiska fooqay dabaqa uu siiyay Cabdi Kariim insha Allah fooq waa loo dhisi doonaa insha Allah isagana fooq kala loo dhisi doonaa taas waa kaftan wasaaradda maalgashiga runtii waa wasaarad ballaaran deeqa anuu berigii laysoo bedelay markaasay cabsidu jirtay in la odhan jiray wasaaraddanu waa la garan waayey yaxa laakiin runtii imika wasaarad culays iyo shaqo fara badan leh rag fara badan baa kambeyn ugu jiray halkan la keeno nasiibka adigu siiyey deeqa inaad timaado wasaarad runtii waddankan loogu talagalay inay u keento markaa horumar marka muddadii koobneed anagu aan joognay annaga iyo wasiir Cawad iyo shaqaalaha wasaaradda waxyaalihii noo qabsoomay ayaan runtii jecel halkan inaan soo koobo maadaama wasaaraddu wasaarad cusub ahayd oo markii hore wasaarad kale wax ka tirsan ahayd markii wasaarad laga dhigay waxyaalihii ugu horreeyeen culayska saarnay waxay idin la sameeyay markaa structure-kii wasaaradda horta oo qaab dhismeedkii wasaaradda la sameeyo wasaaradda markaa 4 waaxood baan u sameynay waaxda maamulka iyo maaliyadda waaxda markaa maalgashiga waaxda markaa qorsheynta iyo markaa cilmi baarista iyo waaxda free zone markaa maanta waxaan la joogaa halkan maareeyay free zone berbera mudane xasan oo nin khibrad fara badan leh hadalka uu ka cudur daartay laakiin waa aqoon-yahanada waaweyn ee dalka dhinacna wasaaradda markaa line ministry ahaan kaga tirsan oo nala jooga afartaa waaxood runtii si wanaagsan bay u shaqeeyaan waax baa weli xoogaa yar qabyaa laakiin saddexda kale agaasime si fiican bay u dhaqaaqeen waana runtii ku sharixi doonaa halkay marayaan markaynu si gaara isku noqonno waxyaalaha kaloo la qabtay waxaa ka mid ah maadaama markaa anugu eegnay baahidii qarankeenu markaa muu lahayn siyaasad qaran oo lagu haga maalgashiga waxaan lahaan jirnay xeerka la idhaahdo xeerka maalgashiga shisheeye xeerkaasi wuxuu ka hadlayey maalgashiga shisheeyaha si loo soo dhaweyn lahaa si loo dhiirigelin lahaa laakiin xeerkaa markaad akhrido maalgashiga ma soo dhaweynayo uu sii eriyaa runtii ilaa 9 wasaaradood baa guddi ka ah wasaaradaha ugu shaqada badan leh oo aan la isla helin ba xataa in isu yimaadaan incentiveska uu bixinayo dhiirigelinta uu bixinayo aad bay u yarayd meelaha qaar incentive ma ahayna dadka uu sii eriyey marka xeerkaana dib eegis baan ku sameynay uu dhammaystiran yahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa markaa waxaa jira niman la taliyaala xagga sharciga nagala taliyo nala shaqeeya ilaa shirkadda bariga ee sharciyada ilaa East Africa Law Firm inay imika nala joogaan in kala ma hubo Jamaal Xamse iyo Shabel nimankan oo sabaran doonta kale waa la taliyaasheena xagga sharciga xeerkii siyaasaddiina waa dhammaystirantay maalinteedu anigii soo bandhignaydana siyaasaddii qaranka la wada tashigii u dambeeyey baynu sameynay wixii intaa ka dambeeya imika inaad u gudbisaan golaha wasiiradu baad ii hadhay oo wixii marka lagu daray talooyinkii maalinteed ina siiyeen ganacsatadu xeerkuna inaad wiiga dambe ama wiiga ku xiga aad soo bandhigtaan oo wada tashigii bilowdaan
uu dhammaystirayay isaguna af Soomaaliga xataa waa lagu turjumay iyo Ingiriis labada luqadoodba waxyaalaha ugu badan ee maalgashataashku weydiin doona waxaa ka mid ah siyaasaddiina maxay tahay qaranka maalgashigu taa maanta adigu waad ka badbaadaysaan xeer marka la weydiiyana xeerkeena hore ansaxa oo baarlamaanku ansixiyay haba iska yara dee tabcaan ahaadee kaasaad u dhiibi doontaa laakiin wixii dambe marka kanuu broseska sharciga maray la ansixiyo kan dambe update-ka ah ee tafaftiran ayaa noqon doona xeerkeena rasmiga marka baarlamaanka ay ansixiyaan muddadii aan joognay waxaa la saxay marka heshiisyo waaweyn baanu galnay horta heshiiskii naga horreeyay Socdiya waxa heshiiska maalgashiga DPL heshiiskaas waa heshiis qiimo leh waddankeena magac iyo soo hooyay marka iyo horumarba kaas uu socdaa waxa kale oo jira marka heshiisyahan la galnay marka shirkado iyo wadamo waan la galnay heshiis baa jira marka calafka xoolaha oo shirkad waddanka ku degan aan la seexnay oo waddanka marka laga soo saari doono marka wixii xoolaheenu quudanayeen inaga dhibaato ugu badan haysta waxa weeyaan marna roobka daa marna abaar baa jirta marka abaarta laga baxana roobka inoo yimaada xooluhu inaga laaya marka in calafkii xoolaha la sii diyaariyo kale heshiiskaas markuu bilaabmay inaga caawin doona aan xoolaheenu gaajoonin waxa kale oo jira heshiis aan la galnay shirkadda Shuraako waa shirkad marka bixisa marka amaahda oo dadka maal gelisa marka ilaa lacag fara badan ilaa 8 milyan ee hayaana amaah lagu bixinayo iyagana kule heshiis baan kala seexanay waa la shaqeyn doontaa waxa kale oo si gaar ah oo la shaqeyn doontaa marka wasaaradda la shaqeynaa jira oo ka mid tahay marka wasaaradda ganacsiga ayagu shaqadeedu toos aan isugu xidhannahay maadaama ganacsatadii maalgashatadu inta badan soo hoos galaan rugta ganacsiga iyaguna waa qolada ugu badan la shaqeyno waxaad la shaqeyn doontaa marka wasaaradda macdanta agaasimadeeda Abdeeq waa inala joogo isna nin firfircoon ah waana gudoomiyihii agaasimayaasha haddaanu de engineer buuni ka qaadin berigii ugu dambeysay Abdeeq waa gudoomiye noo ahaa wasiirkeena ku-xigeenkeena wuxuu ahaa xogaya ayuu ahaa beriga isagoo golaha dhexe ku jira xisbiga kulmiye ayuu haddana xogaya noo ahaa imika uu dallacay oo wasiir wuxuu lahaa waan casiliyaa buu lahaa Abdeeq laakiin dee weli shir la sugmay ma baan filayaa isagana Abdeeqna waad ku xidhnaanaysaa agaasime waxaa jira kole banki kale isna hadal badnaa bereed buuq laga dhaliyay oo banki Chinese ah oo waddanka Mareykanka ka diiwaan gashan Maxter Bank baa la bankigaas niman kale oo maalgashataa bay isku xidhan yihiin lacag 10 bilyan ah ay runtii nimankaas hayaan laakiin anagu saxaafadda 1 bilyan baan u sheegnay 1 bilyan baa lagu dawaqay marka waa dareemaysaa waddankeena inaan lacag fara badan laakiin insha Allah 10 bilyan oo diyaar waddankeena marka in isbedel weyn ku dhici doono wasaaradda maalgashiga horseedaysa rajeena waxaa jira mashruuc isna dhawaan aan saxnay oo ugu dambeeyay oo warshada milixda marka waddankeena milix fara badan baa ku jirta mashruucaasna mashruuc diyaar ah saylac baa lagu horreysiinayaa iyo berbera milixda la soo saaraya waxyaalaan ku heshiinay waxa ugu talagalay iyagu inay qaataan iyo dhoofiyaan inagu imika milixda mararka qaar Itoobiya wala inooga keena iskaashatadeenna saylac joogta iyagana waanu shirnay inay u diyaar garoobaan waayo dadka inta badan wax warwarka geliya waxa weeye marka cid maal gashaysa waddanka timaado in dadkii maxalliga ay dareemaan iyaga meesha laga saarayo taana heshiiskana ku qoran tahay waanu ka heshiinay lagama saarayo runtii iyagaa lala shaqaynayaa nimankaas waa niman lacag sita inagu waxaan doonaynaa haddii milixdeena la dhoofiyo dollar baa ina soo geliyay marka halkaynu xoolaha quray markaa dollar ka sugnay marka in markaa ay milixdeena markaa dollar noo keento qoladaan heshiiskoodii waxooda waa ku wareejin doonaa intii aan joognay runtii waxaan la kulannay 67 maalgashato caalamiya oo kala duwan waxaa ka register garaysan markaa imika wasaaradooda ugu iman doontaa faylkeeda 82 maalgashato oo markaa faylashoodii waraaqoodii yaalaan oo isugu jira qaar maxalliya iyo qaar caalamiya intaba dabagal iyo ilaalin iyo taageero kaaga baahan yihiin wasaaradda runtii shaqadeedu guud ee madaxweynuhu sameeyey wasaaradda waxaa la aasaasay sanadkii hore markii xukuumaddan dhalatay ujeeddada loo sameeyey madaxweynaha muuse biixi cabdi uu sameeyey waxa weeyaan in maalgashiga marka la dhiirigeliyo maalgashiga dibadda la dhiirigeliyo la soo jiito halka la keeno imika wasiirku wuxuu ku maqan inuu maalgashato la soo kulmo waddanka keeno anu bishii hore aan tegey dhowr waddan oo Yurub aan soo maray adna safarro badan baad geli doontaa agaasime kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba waxaa la doonayaa maalgashatada in markaa la soo jiito la keeno waddanka innaguna waxaan doonayaa in soo dhaweynaa markaa nagu waajiba sida xeerarkeena iyo siyaasaddeena uga qorayaan in maalgashiga la horumariyo la boonbooniyaa la doonayaa oo khayraadka waddankeena yaalla aan dadka u sharaxno
haddii markaynu tiifiyada ka hadlayna siyaasiyiinteenna iyo cuqaasheenna ilaahay hadaaye haddaynu markaa hadalla xanaf le isu marana miidhiya maalgashatu way naga didaysaa marka innaguna aynu turno waddanka aynu turno dadku waa xor weeyaan xukuumadduna way soo dhaweynaysaa dadku inay hadlaan laakiin markaan hadlayna lex jeclaana runtii aan ku darro waayo dad bayna dhegaysanaya maalgashatada waxyaalaha kale wasaaradduna xil saaranta waxaa ka mid ah inay markaa dhiiri geliso oo dhiirigelin la siiyo meelaha qaar wixii sharcigu ogolya canshuur dhaaf baa loo sameeyaa meelaha qaarna markaa si kalea markaa dowladdu dhiiri gelisaa ta kale ugu muhiimsanna waxa weeyaan protection waxa la dhaha ama ilaalin in la ilaaliyo markaa qofkii maalgashadadahaa qofkii meel maalgashaday oo fikir iyo lacag geliyey inaanay cid kale markiiba dul imanine laakiin dee hadduu isagu suuqa ku filayay shuruuddaas baa ku xidhan hadduu qof warshad furo warshadaasu haddii suuqa ama dhimaanka gudaha baahida gudaheenna ay markaa daboolayso ma ogolaanaysaan markaa inay cid kale markaa soo gasho laakiin haddii aanay baahidii suuqa ka adkayn innagu waxaynu isticmaalnaa suuqa xorta ama free trade wax la dhahdo marka cid kasta waa la soo dhaweynaya waddanka maalgashanaysa laakiin isdulsaar iyo culays midna ma jiro aad iyo aad baad mahadsantihiin deeqa cabdi yuusuf ku soo dhowow anuguna waa ku garab taaganahay ilaa intaad la qabsanaysa waa kula shaqaynayaa mar kastoodii baaata telefoonkaad ugu soo dhufanaysaa shaqaale aad iyo aad u dadaal badan oo aad iyo aad u wanaagsan baad haysataa halkan waxaa ka hadlay laba nin baa ka hadlay oo mahad iyo maxaad salebaan sambal bay ka yihiin laakiin wasaaraddu ragga uma badnay hablaha u badan runtii marka habluhu may hadal maanta waa ka xumahay agaasime siciid ayaduna jirto maalgashiga ah hablo fara badan oo kale iyaguna wasaaradda oo aad u firfircoon xogeynta wasiirka iyo xogeynta agaasimaha iyo HR-ka inanta inoo qaabilsan iyo inanta maalgashiga inoo qaabilsan iyo khasnajiga iyo waxaasoo oo dumar marka ciidan badan baad haysataa meesha waxaan rajaynayaa runtii sidii wanaagsaneed ee shaqaaluhu la soo shaqeeyna aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa la-aantood shaqadu may socoteen wasaaraddu markaa wasaarad sharaf leh oo qiimalaad ka dhigteen sbaceka wasaaraddu ku shaqaysaa wuu kooban yahay laakiin waxaan rajaynayaa inaad maadaama sanadkan cusub shaqaaluna badan doonaan dhismaha ku jiray sanadkan hore dhismaha annagu markaanu eegnay waxaanu jeclaysanay markaa wasaaradda maalgashiga maadaama wasaarad muraayada tahay in meeshan meel ka qurux badan runtii la geeyo marka haddii aad isla garataan adigii wasiirka waa qorshayaasha idiin jira lacagtii dhismahii ku jirtay imika kumaanan dhisin laakiin haddii miisaaniyadda dambena lacag baan ku darnay runtii loogu talagalay dhisme xarun dhulkiina waan ku hayaa waan arkay inkastoon dee la ansixin oo hoos baan kugu sheegayahay dhulkaa marka laidii soo ansixiyo waa meesha ku habboon ee ku quruxda badan runtii maalgashiga looga dhiso dhisme shaqaalaha iminka wasaaraddu waa 30 qof marka dhinac laga eego way kooban yihiin laakiin waa 30 qof oo runtii u dhigma 300 qof u dhigma weyaan shaqadooda markaad eegtay dadaalkooda adiguna mar haddaad kusoo beertay waxaan rajaynayaa shaqada sii dardargelin doontaan aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaanta ka soo qayb gashay iyo saxaafadda waan u mahadnaqayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu